waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi Axmed Kaboole dhalinyarada meesha fadhiya badana wajiyadooda rag badan baan isnaqaanaa waxaan deganahay Stockholm magaalada Borlänge waan imaan jiray anigoo ka shaqeeya project la dhihi jiray Navigator oo Soomaaliska Riksförbundet oo delivery jiray ragay khiyaartaan ugu soo dhaweey jiray magaalada waxaa kamid ah sheekhan koofida wata wadaadka ma sha Allah dhalinyaro maanta sharaf ay tahay runtii dadwada dhalinyaraha aqoonyaal ah inay meesha jooga inkastoo ciraalayaasha laftirkooda ay yihiin dhalinyaradii shalay ay yihiin oo waxaan bari ka maalin hadalkaas aan leenahay odayaasha badan aan leenahay bari anagu wuxuu nagu noqonaa xataa xanuuna marka waxa way waa all the discriminating caadi way marka ayagana waxaan leenahay insha Allah ta'ala ha ogaadaan in adduunyada isbedeshay adduunka hadeertaan aan marayno oo yahay adduun dumarku iyo dhalinyaradu ay awood leeyihiin mustaqbalka ay dhalinyaradu yihiin aniga waxaan maanta soo raacay ururka Soomaaliska Riksförbundet oo aan qayb ka ahay hadeertaan xoogaa waxaan ku biiray asxaabta Fritids Politikerka oo magaalada Stockholm runtii Swiss-na waan ka mid ahay ragga asaasiyaashii aan ka mid ahay aydihii markii uu koreeyo ku yimidna waxay ahayd markaan ka shaqeyn jiray project-ka Navigator markaan ka shaqeyn jiray waxaan jaanis u helay inaan tago Uumiye ilaa Maalmo marka urur kasto aan la kulanno markii la dhalinyarada halala kulmo waxaa arkaysaa xoogaa rag iska fahmta oo meelaha iska ururka dhalinyarada Soomaaliska foreign wada at the same time was ka konton jir lixdan jir marka haddii konton jirkii dhalinyaro yahay كانوا نقلنا يعني دليرات كانوا نقلنا يا بسطنون كان شرط الاسبيتهم يتبرع طيب مركز waxaan niri dhalinyarada gadaal fariisata markii shirka aan dhimaano ma ayaga rabin inay u tiriyeen helaan oo ay ka mid qayb noqdaan ururada ay ka mid noqdaan ayaga rabin bise waxa waaye meeliyaadka asika ayaantaas aan waxaan bilaabay inaan dadka dhalinyarada Allah hadalno oo rag badan waxaan warnay ma network u sameeyo dhalinyarada network waxa waa laga tagi doonaa maanta chance ay sanaa wajiyan xogaa leenahay dad badan aan naqanaa malimada sagaan ما نتورك هالو تاسع وحكو صوب اللوضي سومالي سكراستا كبعد الصومالي مثل سيستم كورنتي فيسبوك يا بلاتفورم يا هاي هل كان صار لك فكر كوكي سياسي عمرية أو كوجيرا مليون باتية السلام عليكم هذا ما سنتي أنا ولا باقي hadalkii waa iska badan yahay waxaan isku day doonaa soo koobo marka hore waxaan ku mahadcelinayaa Soomaali Youth oo igu casuumtay ragga safarka dhan loo soo galay ka soo qayb galay soo dhawaadaan yeelanahay magaaladiini midda labaad aan rabaa inaan sheego waxay tahay dhalinyaradu caqabadaha haysta maanta ma soo bilaaban waxay soo bilaabatay SYL kala waajiyay walaalkii Maxamed Nuur dastuurka Soomaaliya waxa lagu qoray ninka Soomaaliga ee siyaasi ah inuu san ka yareen 40 sano xilalka uu qabanaya laakiin siyaasadda wadankan ninka uu banaan yahay xilli kasta waa asiga chance awood u leeyahay oo ku soo dhaqaaqo oo ku soo korkuraastaan oo ku soo gorgaro aniga tan taariikhdeena iyo sheekayo Soomaaliya Youth markii la aasaasay 7 bilood baa wadankan joogay taariikhdan daaimo laga sheekaynayo maqlayeen xogaa stress baa hayeen maxaa yeelay markii yarada laga hadlayo markii dhalinyarada laga hadlayo aad bay xanuujinaysaa dhalinyarteeni siday u baahan shabaq loogu hayo shabaq loo haystaan loo haysto sida Itoobiya shacabka loo celiyo 100 milyan loo celiyo dhalinyarta Soomaaliya loo celiya si aysan adduunka ugu janqaadin marka anaka siyaasiyiinteenu wax loo soo dhibeen oo akhriyaan laakiin wadankan waxa ka baranay inay dhalinyaradu awood leedahay waxaan leeyahay wadan baa joognaa aan ka faa'iideysano aan noqono China iyo maxallaha iyo South Korea North Korea Europe u soo doontay waagi faqriga ahaayeen cilmiga way laabteen dalkoodii warshado ka samaysteen maantana waa dadka hogaamiya G20
marka aan ku talagalno dalkeena inaan ku laabano waxaan leeyahay waxa la barto aan ku taxadarno sidaan dalkeena u sabata bixleen aad baa maasantiin حدثنا وقت يلا يعني سنة وقتها صاير لا أنت لا يجاري قلبه وقت فيه فهم نوتر وحكى سيرنا ضمان مرتضى خاصة مرتضى يا سويس كويل جينا سمعين مشكتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتم وانا سلامي. reebo lengayo intiina kale waana runtii aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa dadka barnaamijka soo diyaariyay gaar ahaan Somali Youth for Education iyo muxuu ahaa Swissba markay noqoto dhinaca yaable wax badan baan qabanaa wax qabadkeenuna wuxuu ku salaysan yahay 3 meelood ama 3 qaybood waxaanu kala saarnaa intern arbetet extern arbetet intern arbete waxay tahay kontinuerliga verksamheter såsom studiecykel och annat. Studiecykel, läxhjälp, så i sommarprojekter, sommarläger och lite annat. Sen har du troligen nog här gira vad externt arbete och då är det oftast faller inom ramen för påverkansarbete där vi försöker föra unga somaliernas röst och försöka vara en lokal röst åt somaliska ungdomar men ungdomarna i synnerhet. Det är väldigt kort om oss. Sen har ni frågor får ni gärna komma till mig eller Mohammed får vi diskutera mer om både organisation men även också hur vi kan samarbeta över liksom kommungränsen. waqtigoo gaaban dartiisna waxaan hadal ku daynaa Ashraf oo ka mid ah Steeler Saaxib ururka Somaliska Ungdomsförbundet aniga waxaan ahay gudoomiyaha ururka marka guuleed iyo hadalka waxaa sii wada doona Ashraf oo nooga hadli doona Francis Bonner oo waxaan qaban doonaa insha Allah waqtiga dhow. Välkomna här i Somaliska Ungdomsförbundet. Vi har haft en del aktiviteter förut och ska se här. Prata lite om vad vi har gjort. Vi har gjort till exempel Järvaveckan och det gjorde vi under I-dagen. Och vi säger I-dagen. Det är för att alla kunde komma just den dagen. Just därför gjorde vi just under I-dagen. Och meningen är för att samla alla somalier under ett tak. I framtiden vill vi att det blir flera etniciteter, etniska grupper. Så här ser vår styrelse ut. Jag är kommunikationsansvarig. Jag tar det mesta kommunikationen som kan ske i föreningen. Så här ser de genomförda aktiviteterna ut. Somaliska turneringen som vi har varje år. Som ägs av SYG. Och nästa år tänker vi göra en annan turnering. Där vi står fel. Så vi måste backa. Vi har haft en mässa i Älvsjö där vi har haft själva årsmötet. Sen har vi haft själva kulturveckan. Om vi ser bilderna här. Vi har fått en del... Assalamu alaikum, magacaygu waa Ashraf. Barnaamijkan hadda halkaan sawirada meesha idinku dhegan waxa weeye barnaamijkan qabanay maalintii ciida oo magaciisa la yiraahdo Yarva Kulturvecka oo ah xaafadda Soomaalidu ka degan tahay Sweden Stockholm. Barnaamijkan oo qabtay ururka Isbaansiga dadka halkaan idinka muuqda waxay ka kooban yihiin bulshada Stockholm iyo waxaa ku jira sidoo kale dad badan oo Stockholm ka ah mas'uuliyiin sare sida hadda gabadha jaakada xiran Karin Ingod waa gudoomiyaha Stockholm. Anders Åberg sidoo kale wuxuu ka mid yahay baarlamaanka Sweden. halkan sidoo kale waxaa ku jira Ahmed Mansour Abdirashiid iyo Maxamed oo xoogaha wajigiisa qarsan yahay hadda laakiin la joogaa. Bulshadaasna waa bulshada reer Stockholm iyo kooxda dhaqanka ururka Swiss. Så här har vi haft bland annat danser som ni känner till. Vi har haft ansiktsmålning för barn och vi har haft luftballonger, luftslott med det. Sen hade vi inte någon karusell för det tekniska. Här är själva ljusfotboll. Det är det vi vill göra i framtiden. Ska vi se här. Det här är en som vi har gjort i somras. Vi kan berätta lite. Okay, sawirada halkan idinka muuqda
kolley dhowr qof oo meeshaan joogaa ka dhex muuqda waa maalintii lagu qabtay footballka oo Stockholm sanadkii waa waqtiga sanad kasta wax loo qabto football marka qayb bay ka ahayd Suez qabashada barnaamijkan dad fara badan oo kolley ururka Suez ka mid ah dad badan oo reer Stockholm ka muuqda sidoo kale waxaa ka muuqda hogaamiyaha booliska sen har vi gjort ökad kunskap, ökad delaktighet. Det är en del av projektet som drivs av MUCF och syftet med det här är att utbilda föreningarna och öka kunskapen bland annat hos oss och i våra föreningar. Det här är typ en konferens vi hade i Juba. halkaana kolley waxaa idinka muuqda fanaaniin badan oo aad garanaysaan badanaana aada u caan uga ah waqtiga xadarkan ugu dambeeyay bulshada soomaalida dhexdeeda waa King Jaamac waa Digriyow sidoo kale waxaa barnaamijka naga kula jiray Nuur Caraale Aidarus Maliboy oo halkaas sawirada shishe ka muuqda laakiin kuwan aan lagu soo darin booska qaadi waay daraadeed habeenkan waxay ahayd habeenkii oo markii laga soo laabtay qaybtii dhalinyarta iyo waalidiinta habeen casho sharaf lagu sameeyay fanaaniinta lagu sabootinaayay sidoo kale shir aan la yeelanay dadka Stockholm dad dhalinyartii hore ka fariistay garoonka shaqooyinka hadda anaka hayno oo si talooyin iyo la isugu gudbiyo wax kasta qof kasta oo meesha uu ka joogo hawshan soo cashadan iyo barnaamijkan waxa lagu qabtay Juba Restaurant date-ka iyo taariikhda ku qoran tahay conference sen har vi haft en aktivitet i Horn Africa Center i Uppsala och den var det också med. Okay, sidoo kale halkan waxaa idinka muuqda waa barnaamij sida maanta Somali Youth Reduction ay noogu casuumeen magaalada Burlanga nacaawo sharaf u tahay inaan bulshada reer Burlanga la joogno ayaa sidoo kale waxaa barnaamijkaana nagala shaqeynayay Horn Africa Center oo iyaguna soo kala urur ka mid ah ururada hoos yimaada ururka isbaahaysiga dhanka Soomaalida Sweden oo la yiraahdo Africa Center barnaamijkan oo ahaa conference oo fanaaniin ay joogeen sidoo kale siyaasiyiin sida caawa kale su'aalaha aad weydiinaysaan iyaguna bulshada reer Uppsala ay weydiinayaan su'aalaha idinku caawa weydiisaan oo kale meningen med att vi åker ut är för att se behoven som finns bland somalier och vad vi kan bidra med och hur vi i SUS kan hjälpa till. Vid nästa har vi haft en besök i Nyköping. Här har vi lite bilder. Det här var det senaste vi hade i Connect Hotel. Där hade vi projekt, organisering och ledarskap som vi ganska snabbt gick igenom. Här är det ett uppstartsmöte med alla föreningar vi har i Swiss då. Och det här var en början av vad det är idag. Så en fortsättning. Ja. Okay, sidoo kale barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij seminarium midka aad beritaan qaban karo kale oo lagu qabtay Shista Connect Hotel oo qabtay ururka isbaahaysiga dhanka Soomaalida ka soo qayb galeen ururada kala duwan ururka ka qaybta. Det här är liksom det pengarna vi har fått från MUCF. Okej, framtiden det händer, det är något vi redan haft. Och ja, lite andra besök vi gjort med föreningen. Så, och en krishantering som vi har. Det är vår partner. Så, tack så mycket. Okej. Så alla utgifter som är större än kaffe och sånt måste man ha beslut i styrelsen på att man ska göra den utgiften. Och så ska det kopplas sen till kvitton som man har. Och det kollar revisorerna ganska noga, särskilt när man har som vi en auktoriserad revisor. Då är de stenhårda på att det ska finnas ett beslut innan man gör av med några pengar. Så att inte bara någon i styrelsen kan springa iväg och göra av med massa pengar utan att styrelsen liksom har bestämt det gemensamt. Och när man väl har gått igenom det här, då ska, när revisorn har skrivit sin rapport och man är överens om att allt är okej och det finns styrelsebeslut på alla utgifter, då är det någonting som kallas för ansvarsfrihet för styrelsen. Då ska årsmötet besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Och det betyder att styrelsen har gjort sitt, de har gjort rätt och de kommer inte bli anklagade efteråt för att de har gjort något fel. Men det har hänt någon gång i något bolag
att styrelsen inte får ansvarsfrihet. Och då är de personligen ansvariga för alla utgifterna. Om man skulle säga att styrelsen i distriktet får inte ansvarsfrihet, då är ni som sitter i styrelsen liksom personligen ansvariga för de här utgifterna som det inte fanns täckning för. Förstår ni det här? Var det ett konstigt resonemang? Alltså det är jätteviktigt det här att man har beslut och så att styrelsen kan få ansvarsfrihet. För om styrelsen fått ansvarsfrihet, då kan ni som har varit styrelse pussla ut, nu är det okej, nu har vi gjort det vi ska och nu kan ingen komma och anklaga oss efteråt för att vi har gjort något fel. magacayga waxaa la yidhahdaa Axmed Cabdullaahi Maxamed waxaana socdada senaaleysta la isugu waca Axmed Kabule waxaan deganahay magaalada Stockholm xaafadda Spoken Tensta oo ka mid ah xaafadaha dadka Soomaalidu runtii ay ka degaan caasimadda waxaan ka mid ahay xisbiga cagaarka deegaanka sida hadba loo yaqaano Emilia Batiya waa mahadsantahay Axmed goorma ayaad markii kugu horreysay waddanka raad waxaa imid dalkan 2007 2007 ayaa timid dhalinyaro ayaad had waxaad fursadeed u heshay inaad waddanka wax ku barato sababaha kugu kalifay inaad siyaasadda gasho maxaa ahaa runtii 2007 markaan imid fursadda ka jirtay Sweden hore maana ka bilaabin maana helin jaaniskaas sabab la xiriira warbixin iyo information aan ka haystay iyo sababta dalkan oo imid oo aan ahayn markii hore nimaanaya dalkan waxbarasho maana nimaan dalkan dadka Soomaalidu meel kasta ay dunida maanta ka tagaan waxay u tagaan dhibaato ay ka soo carareen dalkooda laakiin waxay ku xirantaa marka sababta jaaniska aad haysato waxay ku xirantaa warbixinta dadkii ka soo horreeyay ka heshay dadkii ka soo horreeyay maana ka helin warbixin laakiin waxaan ku dhacay inaan shaqo bilaabo maadaama aanan waxbarasho hore lahayn baslan ka bilaabay tagsiilaan noqday warbixinada ugu fiicnaayo dadku siiyeen waxay ahayd inuu shaqo bilaabo basaa jiro waxaa wada baabuurta looriga iyo waan taladoodii waan qaatay laakiin alxamdulilah ka bacdi information aan helnay waxaan maaragtay in aan lagu jiri kara sidaan isbeddel nololeed aan samayno markiina iskuulaan from SFI ka soo bilaabay ilaa jaamacadda haddeertaan aan bishan December dhamayna insha Allah Axmed qofku marka uu siyaasadda geliya daaqad ayuu ka soo galaa irid laga soo galaa ayay leedahay ama meel buu kaga soo dhacaa ma arrimo bulsho ayaad ka soo shaqaysay ma ururada ayaad ka soo sababaha aad siyaasadda ku soo gashay baahida muhiimka ah maxay qof kasta wuxuu leeyahay wax Ilaahay u dhaliyay oo jecel yahay anoo badanaa waxaan jeclaa arrimaha bulshada ama Soomaaliyan joogo ama dalkan Sweden joogo youth politician waan ka shaqeeyay arrimaha bulshada ka shaqeeyay waxaan kamid ahay dadka ilmaha carruurta Soomaalida markii la qaato qayli jiray waxaan kamid ahay dadkii barnaamijka qabanqaabinaya waqtigii hatta in la xasuustaan ma aqaanay gabadhii xisbiga bidixda kamid ahayd oo dadka Soomaalida fiidiyoga inta qaybisay dadkii barnaamijyada qaybin ordayay dadka sharci la'aanta dadkii ordayay kamid ahay ka bacdina siyaasadda waxaa kugu dhalinaya markaad dareentid in aadan go'aamadii aadna waxba ku lahayn go'aamadii xaafadiina oo majority dad kale ay maamulayaan waxaas leedahay way annagaan xaafadeen u maamula weyn qashinka banaanka yaala waxaan qof kale ugu raadinayna annaga bar go'aan ka gaari karna daagiska ilmuhu noo aadaan annaga go'aan ka gaari karna hadduu hilib xalaal yeelanayo hilib xalaal hadduu yeelanayo dareenkaas markaan siyaasadda ay geeyay inaan xaafadda intaan joogno aan wax ka qabanno codka dadka ay helaan matalayaal u hadla inay helaan mise qof ayaad kaga tirsantiin xisbiga Miliyar Party ee Soomaaliya tira ahaan hadda kuma dhihi karo waa intaas laakiin xisbiga Miliyar Party-ka waxa waaye dad badan oo qiyaas ahaan aan joogo hadda aniga ayaa ku jira ma jiraan dad ka horreeyay oo soo gala xisbiga oo meerag ka gaaray ama masoo xataa shakhsi ugu horreeyay ee degmada ka soo gala Soomaaliya magaalada Stockholm ana waxaa jiray gudoomiye hore xaafadda Tensta ayaa jiray laakiin hadda aniga iyo yar kale oo liira Mansuur Jaama oo runtii kamid ahay dadkii musharaxiintii sanadkii hore oo Lanstii gobolka u socday ayaa jiray aad iyo aad active waa runtii bulshada Soomaaliyeed u shaqeeya labada naas ayaa hadda ku jira ana markaa waxaan soo galay nasiib u yeeshay degmada soo galo oo kamun fulmagtay kamid noqday xilwaanada magaalada Axmed waxaad tahay nin dhalinyaro
inkastoo aad tahay xildhibaan golaha deegaanka ee degmada laga soo doortay haddana waxaa tahay nin Soomaaliya inta badan codadku waxaa ku siiyay dad Soomaaliya waxaa jira dhibaatooyin dadka Soomaaliyeed ay qabaan ama degmada aad ka tirsan tahay ama dhammaan waddanka oo dhan arrimahaas maxaad is leedahay waxaad ka qabanaysaa sida hadda aan kuu sheegay wixii geliyey siyaasadda waxay ahaayeen dareenkaasna waxay ahayd dareen aan la qaybsanaya dadka xaafadda degan xaafaddan deganahay codka waxay siiyey dadka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo xaafadda degan waxaana u helnay inay Soomaali yihiin haddana inay Swedish yihiin xaqna u leeyihiin inay dirsadaan dad matalayaal waxaan sidaas daraaddeed matalaynaa dadka guud ahaan xaafadda degan gaar ahaanna waxaa la fiirinayaa hadba dadka jaaniska yar leh ama waxbarashada ama meelaha maaragta dhaqaalahooda hoos u hooseeyo in dadkaas kor loo soo qaado dadka Soomaaliyeed dhaqankooda iyo in la ilaaliyo carruurtan isdilaysa iyo problemka xaafadda ka jira sidii aan u deji lahayn qayb uga noqon lahayn inaan ka shaqayno sidoo kaleetana la soo nooleeyo cultureka carruurta da'yarta aniga runtii waxyaalaha aan ordaya waxay ahayd in la soo nooleeyo cultureka dhaqanka carruurta in la baro oo identity crisis ay ku dhacday in la baro arrintaas aniga aad aan ugu socday waxaan ugu socdoo kaleeto tricket saarbit inaan ka shaqeeyo in ammaanka inaan ka shaqeyno oo xaafaddeena ay noqoto xaafad markii la yimaado ammaan ah oo qofka uusan aaminayay inuu xaafaddiisa la soo aado dharkiisa mobiilkiisa iyo computerkiisa soo cabsi ka qabo sababtaas aan u joogaa meesha waalidiinta la shaqaynaynaa ururada degmada la shaqaynaynaa dadka Soomaaliyeedna waxaa looga baahan yahay siyaasigu wuxuu wax qaban karaa markii uu helo dad la shaqeeya haddii ay jiraan su'aalo qalbigiina ku jira haddii ay jiraan waxyaalaha ay dareemayaan haddii ay jiraan maanta waxaan nahay kanaalkii aan ku tagi lahaydeen istaasuusa su'aalihiina keensada dhibaatada joogta waan geynaynaa wax kasta oo macquul oo la qaban karana waa kala qabanaynaa haddii alla guud ahaan dalkana sidoo kaleeto Axmed ma is leedahay shakhsiga Soomaaliga marka uu xisbiyada ku buuray xisbiga ideolojigiisaba ma aaminsana oo xisbigu iskaga biiro fikradaas ma qabtaa kama turjumi karo dadka laakiin anigu waxaan dareeyaa waxaan ka imid Soomaaliya waa la socotaa dadka Soomaaliyeedna waxaa la yidhaha xoolaaley waxaan ku noolnahay xooluhuna waxay ku nool yihiin geeduhuna waxay ku nool yihiin hawada markaan dalka imid xisbiga cagaarka wuxuu leeyahay geed weyn oo cagaara uu leeyahay annagana Soomaaliya waxaan ahayn markii nabadoonnada ay fariisanayaan geed weyn badanaa ay hoos fariisan jireen geedka calaamadan fiiriyey iyo cagaarkaas ku kay qabtay reebadiye geeleyna waan ahay saas aan ku raacay xisbiga cagaarkana waxaan aaminsan yahay dalkeena u baahan cilmiga iyo bay'adaas aan baranay inaan caqligaas iyo cilmigaas ku celino dalkeena aad iyo aad marka waxaad leedahay ideolojiga aan ku doortay xisbiga cagaar waa saas anigu Axmed ahaan waxaan aaminsanahay difaaca deegaanka waan aaminsanahay dalka haddii dhuxusha la jaro la raro waa aragto roobka iyo moogta waxay soo raacayaan geedahaas iyo hawdkaas marka haddii meeshii dhammaan firaaqa iska noqoto ciid badana way guura dabayshay raacay dabayshu markay ay raacday meeshii gawaan noqdo gawaankaas xoolaheena ku noolaanayaan taas waa inaan u helno dad fahamsan difaac ah oo dadka bara in la safe gareeyo koolka oo geedaha la jaray imise qof ayuu ka kooban yahay kamul fulmaktiga degmada xildhibaanka ka wuxuu ka kooban yahay 101 xisbigiinu ma qof ayuu ku leeyahay 9 hadda waxaad la shaqaysaan xisbiyada alliance hadda xisbiga alliance la shaqeynaa xisbiga social democrat raad garoona la isku dhihi jirana hadda waan yacni waxaan fiirinay runtii waxay ahayd go-aan adag go-aankaasuna wuxuu ahaay xisbiga midigta ama xisbiga midigta fog ee la yidhaha SD si aysan Stockholm ugu yeelan awood milyan baaqeed waxay go'aansadeen inay difaacaan oo ay ka tagaan ideolojigoodii adkaada inay midtan maadaama ay ahaayeen inay aadaan oo la shaqeynayaan si Stockholm u difaacaan